بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل غير مبتدع. أما بعد، kusoo dhawaada barnaamijkeenii caafimaadka ee Dr. Minow Dabiib Yaqaan. Caawa waxaynu idinku haynaa halkan barnaamij xiiso leh oo sii wadaya duruustii ku saabsanayd cudurka kaadi sokorowga. Maanta ama caawa waxaynu dib ugu noqonaynaa kaadi sokorowga kan loo yaqaano nooca koowaad, type 1, nooca koowaad oo inta badan ku dhaca ilmaha ku dhaca. Dad dhalinyaro ahna wuu ku imaan karaa, laakiin inta badan ilmaha markay 5 jir, 6 jir, 7 jir ilaa 10 jir markay ka gaarayaan 10 sano ayaa inta badan la arkaa. Cudurkani ka hortag ma laha sida kan labaad. Waxaa la yiraahdaa qofka inuu maaragtay waxyaabaha macmacaanka iska yareeyo, laakiin ilmo yar oo maaragtay ilmaha kale la mid ah oo wax gooni aan sameynin ayuu ku dhici karaa. Marka ilaa hadda wax la og yahay oo looga hortagi karo ma jiro. Marka maxaa keena cudurkani kaadi sokorowga nooca koowaad ama type 1? waa kan ku dhaca ilmaha yaryar da'doodu ay tahay 4 jir, 5 jir ilaa 10 ayuu u badan tahay. Waxaana cudurkani udub dhexaad u ah xubinta loo yaqaano pancreaska ama ganaca. Xubinta ganaca ama pancreaska howlo badan ayay qabataa. Howlaheeda ugu muhiimsanna waa inay dheecaano soo dhiiqdaa. Dheecaanadan waxaa ka mid ah insulin. Marka qaybta insulinta soo saaraysay ayaa jirka uu weerarayaa oo baaba'aysa. Marka wax yar baa soo baxaya oo dheecaankii lasoo dhiiqaya ayaa aad iyo aad u yaraanaya ama maba soo baxayaba oo eber buu noqonaya. Taa marka waxay keenaysaa in insulinti la waayo mar haddii la weeraray xubintii soo dayn jirtay. Marka insulinti la waayana waxay keenaysaa shaqadeedii inay meesha ka maqnaato ahayd in sokorta dhiigga ay kasoo qabato oo ay xubnaha gudaha u geliso. Marka sokortii waxay noqonaysaa inay ku badato dhiigga ayay ku badanaysaa. Sokorta hadday badatana jirkoo dhan dhiigga ayaa wareegaysaa, waxay tagaysaa kelyihina sokorta faraha badan waxay isku dayayaan inay saaraan. Si ay u saaraanna waa inay biyo badan la saaraan oo markaa calaamadii koowaad oo u naqaano kaadida badan ayaa soo baxayso. Kaadida badanna waxay keenaysaa in dheecaankii jirkii biyihii ay yaraadaan oo ilmihii ama qofkii uu ku dhacayba uu dareemayo oon fara badan uu dareemayo. Markaa uu bato biyaha uu cabayo qofka. Biyo zaa'ida ayuu cabayaa, haddana wuu sii kaadinayaa, biyihiina wuu sii cabayaa, wuuna sii kaadinayaa. Sababtoo ah jirkii ayaa wuxuu sameynayaa kaadi badan inuu iska saaro. Kaadi badan ayuu soo daynayaa si sokorta faraha badan uu u saaro. Waxaa kaloo lagu arkaa ilmihii ama qofkii maaragtay uu ku dhacayba, waxaa lagu arkayaa kaadida badan iyo oonka badan iyo gaajo badan, inuu qofka cunto badan cuno haddana uu jirkiisa sii baaba'ayo. Marka waxa uu jirkiisa soo gelayo oo cunayo iyo sida uu yahay uu muuqdo isma laha. Jirka uu baaba'aya, culays badan ayaa ka lumaya. Ilmihii tabartooda way yaraanaysaa, si fudud ayay u daalayaan, aragoodii ayaa nuxuus noqon kara markay sokorta sii kacdaba. Marka kuwa waa calaamadihii ugu muhiimsanaa oo haddaan dib ugu noqdo waa midda ugu horeysa oo ah kaadida faraha badan, oonka faraha badan, biyaha aad loo cabayo, gaajada badan, cuntada la cunayo, haddana culayskii uu lumayo oo qofkii uu sii baaba'ayo, iyo daal iyo tabar darro fara badan iyo ilmihii oo si fudud maaragtay u xanaaqayo oo maaragtay aan wax u adkeysan karin. Taa ayaa lagu arkayaa. Mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa in inta badanba waxaa la arkaa in ilmihii ay kooma galaan oo ay miir doorsoomaan oo markaa haddii laga gaaro la arko sokortii oo aad iyo aad u kacsan.
oo markaa leeyahay waa noocan waa wixii sokortii cudurkii sokortii noocii koowaad ayaa ku dhacay, diabetes type 1 ayaa ilmihii ku dhacay. marka taa la arko waxaa habboon isla markiiba in insulin la siiyo. daawo afka laga siiyo waxba uma tarayso, sababtoo ah jirkii waxaa ka maqan insulintii, waana noloshiisoo dhan ilmaha inay insulinta qaataan. insulintuna maxay tahay marka? insulintu waa hormoon uu soo deeyo qanjirka pancreaska ama ganaca, shaqadiisuna ay tahay inuu sokorta yareeyo. waa hormoon maaragtay protein ka samaysan oo qayb ka mid ah pancreaskana laga soo deeyo. marka haddii qaybta jirkii uu weeraray, waxaa imaanaysa in insulintii aan maaragtay aad iyo aad gabaabsi u noqoto ama aysanba jirinba. marka taa darteed waxaa loo baahan yahay in insulintii maaragtay jirka uu soo deyn lahaa in la siiyo, oo dibadda laga siiyo, in xididka laga siiyo ama maqaarka hoostiisa laga siiyo, sidii ay ku suurtagalaysaba. marka dad waxaa jiro Soomaali qaarkood waxay aaminsan yihiin ilmaha markay waxaas ku arkaan inay waxyaabo kale la aadaan, ay yiraahdaan ilmihii waa la ilaystay, jinniyo iyo balaayo kale ayaa ku dhacday, marka waxaan sameynaynaa sidaan u saari lahayn, hebelow ayaan u tagaynaa. maaragtay markay takhaatiirta ay la hadlaanna ku adkaysanaya inaan maaragtay la daaweyn ilmaha, oo yiraahdaan waxba maaragtay insulintii shaqo waxaan aaminsanahay ma aha, ilbaa ku dhacday, taana waxba kama jiro. quraan waa la saari karaa, mar walba quraanku waa daawo. sideedabana waxaa la yiri ilaahay cudur ma sameyn, hadduu sameeyana daawo ayuu soo dejiyey. quraanka iyo daawada la siinayana dadka isma diidayaan, qalbigana way maaragtay u dejinayaa, ilaahayna hadduu u aqbalo qofka uu ku bogsanayaa. waxaana la yiri cudur walbana maaragtay ilaahay baa daaweeyo, dadka dadaal unbay la imaanayaan. allaahumma waxaa la yiraahdaa ishfi lmarda ayaa loogu darayaa, bukaanka ilaahu caafimaadsi. allaahumma ishfi lmarda laa shifaa ilaa shifaauka shifaaun laa yugaadiru saqama. marka shifahana mar walba waa laa shifaa ilaa shifaaullah, ilaahay inuu daaweeyo mooye wax kale ma imaanay. wax walboo adduunka ka socdana waa ilaahay amarkiisii wax ku dhacaya ayay noqonayaan, taa ma diidanin. laakiin sababtii in la raaco oo qofkii maaragtay inuu qar iska tuur uusan noqonin, oo ilmihii yaraa maaragtay sabiyadii in aan dhibaato la gaarsiinin. waan arkay aniga dad saas camal aaminsan, laakiin wax fiican ma aha, sababtoo ah wax maaragtay oo wax sal cilmi ku salaysan ama diin ku salaysan ma aha, waa wax khuraafaad ah. marka waxaa habboon ilmaha marka lagu arko oo takhaatiirta ay u sheegaan waalidka inay ku dadaalaan sidii ay u siin lahaayeen haddiiba ay helayaan. meelaha qaarkood dalkeena Soomaaliya dhibaato weyn baa ka jirta, waayo insulintii ama daawooyin kale ay dadku u baahnayeen lagama helayo. insulintana waa hormoon aan adkaysi badan lahayn, oo kuleelka banaanka hadduu iska yaalo way baaba'aysaa, wax ma tarayso. marka in firintijeer meel qabow lagu hayo oo si maaragtay waxtarkiisii uusan u baabi'in ayay u baahan tahay. laguma gedi karo meel gaarigacan korkiisa oo qoraxda ay ku dhacayso oo kale. waxay noqonaysaa in qoraxdii ay dhibaato gaarsiiso oo daawadii insulintii waxba ayna tirin. waxay u baahan tahay in firintijeer lagu hayo, ama qofka hadduu safrayo shandadii uu ku qaadanaya in baraf camal ay ku jiro, wax qabow camal celinayso meel hadduu u socdaalayo. laakiin gurigiisa hadduu joogo, hadduu heli karo firintijeer, in firintijeerka la geliyo. marka insulinta noocyo badan ayay u jiraan, halhalna ugama hadli karno. mid waa si degdeg bay u shaqaysaa, midna waqti dheer ayay maaragtay qaadataa si u shaqeyn lahayd, oo qiyaastoodii takhaatiirta ayaa markaad u timaado ku kala sheegayo, iyo noocyada ay kala yihiin iyo kan kuga habboonba. marka ilmaha yaryar waa kan ku dhaco nooca koowaad, waana maaragtay lagama maarmaan. haddii maaragtay aan la siinin, ilmaha kooma ayay galayaan. haddaan waxba la siinna oo aan laga gaarin, waxay noqonaysaa inay dhintaan. marka in aan la dhayalsanin talooyinkaas, haddiiba la caddeeyo ooba loo heli karo insulinta la heli karo, dadka qaarkood ma helaan, waa nasiib darro. insulintana waxay ka mid tahay daawooyinka
ururka caafimaadka ee WHO uu aqoonsan yahay daawooyinka laga maarmaanka ah oo meel kasta inay yaalaan ay qasab tahay haddiiba la heli karo. haddii dowlad ay jirto, wadan maaragtay nabad ay ka jirto, waa lagula xisaabtami karaa in maaragtay dadkii markay wax bixinayaan isbitaaladii si maaragtay ay yaalaan insulinta inay taalo. daawooyinka waa badan yihiin kuwa maaragtay laga maarmaanka ah. hadda wadankeena oo kale daawooyinka malaariyada oo kale laga maarmaan ay ka mid yihiin, antibiotic iyo badan laga maarmaan ay ka mid yihiin. laakiin caawa waxaynu ka hadlaynaa kaadiskarowga, diabetiska. marka in insulin ay taalo isbitaalada waa laga maarmaan. wasaaradaha caafimaadkana dadweynaha inay kula xisaabtamaan in isbitaaladoo dhan ay geyso farmasiyaasha in laga heli karo. haddii farmasiyihii uusan haynin, ma qofkii markii uu u baahdo emergency maaragtay degdeg loogu yimaado kooma ku jiro oo insulin mooye wax kale aan lagu soo kicin karin, maxay markaa taraysaa? waa markaa wax maaragtay dadka ay u baahan yihiin laguna xisaabtamo. dadka ganacsatada ahna inay keenaan daawo sax ah oo maaragtay ay ka mid tahay insulin aan maaragtay waqtigeeda uusan dhicin, oo habka loo kaydinayana uu fiican yahay oo barafkii aan laga bixinin. marka intaa hanoo joogto caawa. intii barnaamij kale oo kanoo kale aanu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa allahuma laa shifaa ilaa shifaauka, shifaaun laa yugaadiru saqama. allahuma ishfi lmarda laa shifaa ilaa shifaauka, shifaaun laa yugaadiru saqama. weli waxaan ka samri la'ahay oon aada u xiiseynayaa hadiyadii qaaliga ahayd ee hooyo ambiyo. waa cabdiraxiim cali dhagacad hooyadiis ay magaalada xamar iiga soo dirtay. waad ujeedaan mar kale, waa ka baleela arka. tanna waa xaarinkii iyo qarshintii iyo shanladii iyo fandhaalkii iyo kurbintii oo dhinac laga soo gooyay iyadana, iyo warankii. halkan waranka ayaa ka muuqdo. kan waa fandhaal, kanna waa qaansadii, waa kay iyo gamuunkii. waa idinka howsha gamuunka ayaanu leenahay sida reer Kismaayo ay yiraahdaan. sidaa iyo nabadgelyo. wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.